بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أيام هذا أو إن كل شيء بشان بركيسنا رمضان أو استانوه نحرست عبادة الله فضلك بشان يمال ماهن حرمة بدن وحانوهم بلينا دمان مسلمين عالم كجارهان ومدى الصومالي ميل كستي جوجان بشان رمضان وبشي خيرك وبشي أي كجرتو هبينك خيرك بدن ليلة القدر وبشي توبدا عفسك شيطان كان الله حره مسلمين تنا النار تلاقى حريه يا خير كله أبدا وحن إلهي كبرينا إنه فضل جاس أو إذا نقوم نيسته نمعديسه ينحرستي سنة نوزياديه ولا ليال حالدا وكجرو عالمكو كرهان halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhawaado kaalmadooda sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqeyno danta guud ay ugu horeyso amniga kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka ugu dambeyntii waxaan alla ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeena iyo dalkeena ramadaan kariim assalaamu calaykum khayrka badan ee laylatul qadriga waa bishii toobada cafiska shaydaankana la xiro muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo ziyaadiyo walaalayaal xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhawaado kaalmadooda sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqeyno danta guud ay ugu horeyso amniga kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka ugu dambeyntii waxaan alla ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeena iyo dalkeena ramadaan kariim assalaamu calaykum bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alla ayaa mahadleh oo ina kula siiyey bishaan barakaysanay ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan
muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. allah ayaa mahad leh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysan ee Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay. fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. allah ayaa mahad leh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysan ee Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay.
fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. allah ayaa mahad leh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysan ee Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay. fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. allah ayaa mahad leh
oo ina kulansiiyey bishaan barakaysan ee ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay. fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan ramadaan waa bishii khayrka, waa bisha ay ku jirto habeenka khayrka badan ee laylatul qadriga, waa bishii toobadda, cafiska, shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen, shacab iyo dowladba, inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii, waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. allah ayaa mahad leh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysan ee ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada ilaahay. fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. bishaan ramadaan waa bishii khayrka, waa bisha ay ku jirto habeenka khayrka badan ee laylatul qadriga, waa bishii toobadda, cafiska, shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen, shacab iyo dowladba, inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka. ugu dambeyntii, waxaan alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. ramadaan kariim. assalaamu calaykum. bismi illaahi raxmaani raxiim.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أيام mahadleh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysanay Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bisha ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. Walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. Alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. Qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. Ramadaan kariim. Assalaamu calaykum. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Allah ayaa mahadleh oo ina kulansiiyey bishaan barakaysanay Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bisha ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. Walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. Alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. Qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo
dadkeenna iyo dalkeenna. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Allah ayaa mahad leh oo ina kula siiyey bishaan barakaysan ee Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska, shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. Walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen, shacab iyo dowladba, inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. Alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. Qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum. Inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqayno danta guud ay ugu horeyso amniga, kuwaasoo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Allah ayaa mahad leh oo ina kula siiyey bishaan barakaysan ee Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyaynaya dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bishii ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska, shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto, nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo. Walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen, shacab iyo dowladba, inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. Alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed
oo duruufaysan qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqeyno danta guud ay ugu horeyso amniga kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka ugu dambeyntii waxaan alla ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna ramadaan kariim assalaamu calaykum khayrka badan ee laylatul qadriga waa bishii toobadda cafiska shaydaankana la xiro muslimiintana naarta laga xoreeyo iyo khayr kale oo badan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo siyaadiyo walaalayaal xaaladda uu ku jiro caalamku gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan inta dhimatayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan